hamba ay baneeyaan oo qaarna xamar laga dajiyo qaarba meel loo qaado shacabka ayay dhibaato ku tahay waxaan rabaa marka inaan baaq adag u diro ciidanka daraawiishta Jubbaland sida ku haboona aan u sheego Axmed Madoobana looga tagayo deegaankana lagu ilaalin karo inaan la wadaago ayaan rabaa soo dhawaada muuqaalka like saara aragtidina noogu reeba qaybta commentiga aynu ku bilownaa taniya intii dawladda federaalku ciidamada ay keentay deegaanka Raas Kamboni ee gobolka Jubbada Hoose waxaa si isdaba jooga uga goosanaya Axmed Madoobe ciidanka daraawiishta Jubbaland oo si toos ah ugu biiraya kuwa dawladda federaalku ay halkaasi geysay maanta niski hore oo ugu dambeysay 120 askari oo waliba hubaysan ayaa ku biiray ciidanka dawladda federaalka Soomaaliya horay waxa ugu biiray ilaa iyo dhowr boqol hadii la isku dardaro 1000 askari ayay ku dhow yihiin muddo 7 bari gudahooda ciidanka daraawiishta Jubbaland ee ka tagay ee ku biiray kuwa dawladda federaalka ee Soomaaliya walina wadaday ku sii jiraan oo kow wali ma gaadhin waa 7 bari hadii ay gaadho 3 toddobaad ama 4 toddobaad waxaa halis ah in ciidanka daraawiishta Jubbaland midba uusan ka hadhin oo dhulku loo baneeyo kooxda khawaarijta run ahaantii arrintaasi waa musiibo inta leeg ودين بان كيف فاهمين دونا عيدا كتراويش لجبلان نفعين وحوي فرينتا عنو وضعي قيب كتاي انتنا لكن اوجو دا قلين احمد مدوبة مركي ارنتا سيكون عضاي او عيدا كي اي اسديدتان باللابين وحو ياري سراكيش لغشي كسيي انتو دا بدا كونتن اسكريبو اسكوغو كيني انكا بدا وليبا ايو اسكوغو كيني مقالة كسمايو deegaano badan buu ka soo saaray sida hadda buulaxaji sargaalkii xukumay ciidankii buulaxaji ee Birjeex sargaalkii xukumay Khadar magaalada ayaa la keenay waxa sidoo kale to ayadana loo yeeray Cabdilla Biroole iyo tuulooyinka aagaasoo dhan saraakiishii joogtay ee Jubbaland magaalada Kismaayo ayay muddo dhowr bariya ku sugan yihiin qaar xabsi baa la dhigay oo iyagu waa si toos ah loogu helay inaysan ku qanacsanayn hanaanka Axmed Madoobe halka qaarkii kalena magaalada loo daayay oo shaqadoodii aysan wali ku laabanin magaalada Kismaayo ay iska joogaan Axmed Madoobe marka shaki badan baa galay ciidankuna de waxa way adkeysan waayeen oo de Axmed Madoobe waa u adkeysan waayeen marka wuxuu ka shakisan yahay marka cidii uu aamini lahaa cidii uu diri lahaa cidii dagaalka ciidanka dawladda la gali lahaa ayuu garanayay ilaa iyo hadda saraakiisha halka la isku keenay waxaa la xaqiijiyay dad ku sugan magaalada Kismaayo waliba ciidanka ku jira inay diideen dagaal uu u diri lahaa Axmed Madoobe oo ciidanka dawladda Raas Kamboni ay keentay uu rabay in lagu qaado weerar way diideen saraakiisha waxaa la yiri mudane madaxweyne nimanka halka la keenay khawaarij maaha waa ciidan Soomaaliyeed oo heer federaal ah qoriga uma wadano inaan ciidan Soomaaliyeed dhalinyaro Soomaaliyeed oo walaaladeena inaan la dagaalno oo dawlad ka socda inaan la dagaalano anaga qoriga uma wadano anaga qoriga waxaan u wadanaa inaan kula dagaalano khawaarijta inaan deegaanka ku ilaalino inaan ku xoreyno ayaan qoriga u wadanaa lagu yiri Axmed Madoobe runta Axmed Madoobe loo sheegay wajigabax bay ku noqotay Axmed Madoobe marka arinta waa qaadan waay wuxuu yiri war xagee la iga helay war maxaa dhacay waliba hadallada kulkulul waxaa la ii xaqiijiyay ragga sheegay iska daba marmaray ee ku adkaystay waxaa kamid ah taliyihii guutada Birjeex baa kamid ah leeyahay taliyihii guutada Birjeex adeer anagu wuxuu yiri qoriga ma qaadan karno kaligiina ma rag badan oo saraakiila ayaa arintaasi indhaha ka saaray Axmed Madoobe oo yiri mudane madaxweyne dhul ka dhow baa jiro khawaarijtu ay joogtay dhulkaan aadno oo adiguna ciidanka abaabulo khawaarijta dhulkaan ka horeyno kuwa dawladdu halka keensatay waa heer federaal waa dhalinyaro anagoo kala amar baa la soo saaray meesha taga baa la yiri meeshii bay joogaan inaga duulaan inaguma soo aha ma jirta sabab marka inaga aan duulaan ugu qaadno oo aan dagaal ugu qaadno Axmed Madoobe marka raggi sidaas soo jeediyay qaybo kamid ah Kismaayo xabsigeeday ku xiran yihiin oo jeelkay ku jiraan qaarna waxa way uu cabsadayo inay gadoodaan ciidanka uu ka yaabay oo saameyn badan bay hayeen farahu ka qaado wuxuu yiri magaalada Kismaayo iska jooga buu yiri أنا صوت الشناية كنتم يدور أسكري السرقال عن هنا أو سراكيشي سرسرا حريه هذا اللي قصوا قاضي كوا مدحتو يدا جوجا الله دري أو داعدو مليني إني ويهين أيو أدري أو يري بوسكا سيا يو أسكرتا
si waxa weeye si shaqo geliya qaarna hadduuba saraakiil nima siiyey oo weliba ilma adeeradiya oo uu yidhi waa laynagu soo duulay halkaa taga oo ciidanka dhiiri geliya oo abaabula innagaa laynagu soo duulay xukunkeennaa lagu soo duulay inaan xilka joogaan lagu soo duulay qabiilnimadeenna lagu soo duulay kanaa lagu soo duulay cadow badan baan leenahay reer jubbaland oo dhan baa isku keen bahaystay iyo soomaali weynba kaca buu yidhi oo dhalinyaro intuu darajooyin ku taxo si hoose u siiyey baa wuxuu yidhi orda oo waxaa tagtaan xeryaha ciidanka iyo furimaha taga buu yidhi waxaa intaas sii dheer axmed madoobe wuxuu wadaa yaa tolaay waxaa laga soo hadlayaa jigjiga waxaa laga soo hadlayaa qabidaha waxaa laga soo hadlayaa dad aman kesmaayo waxa ka socda aan waru haynin oo been iyo barnaamijyo loo sheegay oo soo hadlay waxay leeyihiin qabiil baa lagu soo duulay qabiil ahaan baa lagu soo duulay oo meel kala duulaha kana soo waxa weeye ninkayna la joogay buurta saarayna cagjar iyo ogaadeenka kaliya dad baa inoo baystay cawliyahan iyo Soomaali baa la inoo soo dhaxraacay oo waa laynagu soo duulay raggaas la inoo soo dhaxraacay Soomaali oo dhan baa inoo soo dhaxraacay buu leeyahay arinta marka waxaan rabaa inaan kaga jawaabo horta waxba kama jiro ciidankan goosanaya iyo halistan maanta Kismaayo ka taagan shacabkii reer Jubbaland ceebtan maanta soo wajahday ciidankoodii horin iyo guuto ay isku dhiibahayaan waxaa sabab u ah dulmi iyo dhibaato Axmed Madoobe uu geystay 13 sano uu joogo iyo waxa weeye intii uu joogayba dhibaato iyo dulmi iyo waxa weeye dhib bay ku jireen shacabka reer Jubbaland ummadda Soomaaliyeed ee cid walba leh kuwa jooga ogaadeenka ee hadda uu ogaadeenima ku soo kicinayana waxba umuusan gelin oo sharaf umuusan samaynin oo waxaan ceeb ahayn kama aysan faa'iidin 13 sano ee xilka uu joogo ciidankii daraawiishta Jubbaland maanta inay horin u goostaana sabab isaga u ahaa dhibaatada uu geystay baa sabab u ah taasi marka waxaan leeyahay bulshada Soomaaliyeed ha ogsoonaato meel walba joogaanba cid walba yihiinba kuwa oo ogaadeen ahaan lagu soo kicinayay iyo kuwa kaleba ha ogsoonaadaan war meeshan waaqica yaal ee dhabta ma ogsoonadeena maanta Axmed Madoobe qof waxa weeye taageeraya ama difaacayay ma jiro qof og oo maanta difaacayay ma jiro hadduu jirana waa qof dulmigiisa ku faraxsan dhibaatada uu sameynayay ku faraxsan ama farahaba kula jiro isaga naftigiisa dambiile ah oo hadhowta ka yaabi in lala xisaabtamo weeye kuwa u dirbaantumahaya ee gudaha jooga kuwa dalka dibadda joogana de waxba ma kala ogaba oo iyagu xogtaba ma hayaan Axmed Madoobe tacdiyooyin dilal afduub tagrifal awoodeed ayuu ka geystay Jubbaland inta uu joogay waxaan ahayn afduub iyo tarxiilid aan ahayna oo laga faa'iideyna ma jiro marka waxaan leeyahay aniguba ogaadeen baan ahay anigaba in adeerkay weeye shalay markuu Kismaayo la qabanayay raggii la socday u durbaantumahayay baan anigaba ka mid ahaa marna maanta qof Axmed Madoobe xaqiiqadiisa og inuu taageerayo u malayn maayo waxaad ka garan kartaa maanta oo tusaale inoogu filan ciidankii uu gacanta ku hayay baa maanta gacantiisa ka baxsanayo ka cararaya ciidankii baa ka baxsanayo ka cararaya oo maanta meelihii yaraaye ay joogeen 13 sano meel lama qabanina meelihii yaraa ee tuulooyinka ahaa 13 sano u dambeeyay gacanta lagaga dhigay khawaarijta ayaaba maanta halis ugu jira inay kooxdu dib u qabsato ciidankii ay ka dareereen maxaad u malaynaysaa marka dad shacaba maxaad u malaynaysaa marka bulshada Soomaaliyeed taasi ha ogsoonaata dhinaca kale waxaan rabaa inaan baaq u diro ciidanka daraawiishta Jubbaland waxaan leeyahay war Axmed Madoobe wuu tagayaa gabalkiisi baa dhacay waqti uma harin hadii la dhaho caafimaad oo maanta waa ninka xanuunsan ee lugtiisa markuu mid qaado mid kaleeto ninka daba socdo uu ilaalinayo meeshuu dhigi lahaa ama inay soo raacayso la ilaalinayo labadiisi lugoodba maanta israaci karin talaabada iyo xanuunka iyo talaabadiisa markii laga fiiriyo oo maanta cid rabtay ma jiro oo caalamkii oo dhan baa ku dhagan oo reer Jubbaland baa ku kacay oo shacab iyo ciidan baa maanta ku kacay Axmed Madoobe waa tagayay dhulka aad joogtaan ha u banaynina kooxda khawaarijta ha u banaynina hadda dhammaantiin ku birtaan ciidanka dawladda dhulka waa banaananaya khawaarij baa qabsanaysa xalna irooma noqonayo dhulkaad ku soo dhibateen saaxiibadiina ay u dhinteen idinku aad ku dhaawacanteen waqtiga aad geliseen muddada badan ka ilaalinayseen ee inta yartaa waaba dhul koobane intaa ha banaynina askariga jooga meel walbo Jubbaland ka mid ah isagoo halkiisa jooga aragtidiisa ha ku dhawaaqo naftu mar bay bixi naftu mar un bay baxaysaa
mar labaad ma baxayso. halkaas aad taagan tahay kaga dhawaaq axmed madoobe inaadan raacsanayn taageersanayn qalad uu yahay waxa uu ku jiro ciidanka dowladda halkaa ka taageer adoo halkaada jooga taageer halkaada ugu yeedh dowladdu waxay leedahay diyaarado banaan cidlaa ka degi karay leedahay halkaa aad taagan tahay dowladdu kugu imaan kartaa haddii ay kaalmo ku wadiya hadday wax ku wadiya hadday ciidan ku keenaysaba marka waxaan leeyahay ha banaynina goobihii aad gacanta ku hayseen iyo saldhigyadii dadkaa shacabkeed la joogtaan kooxdu hadday imaato waa la dhibaatayn waxaa la leeyahay so kuwii maaha u daba dhaqayay ku hoos noolaamin ahayn ciidankii waxa weeye jubbaland soo min ahayn baa la dhihi dadka shacabkaa dhibaata soo wajihi qaxna maanta ma kari karaan meel maanta ay u qaxaanna ma garanayaan oo jubbaland cir iyo dhulba waa ka xidhxidhantao maanta xataa hadday dhul isku furfuran oo maanta haddii tan laga qaxo tukan la tegayo ay jubbaland lahaan lahayd dhib ma lahaadeen maanta meel loo qaxayo meel ay u baxayaan shacabkaa ma jiro ha fursad ha u siinina kooxda khawaarijta in dhulkaasi ay dib u qabsato caloladayg muujiya isku duubni muujiya sargaal walba meeshuu joogay isaga iyo ciidankiisa halkaas ha kaga dhawaaqaan inay diyaar u yihiin inay ku biiraan ciidanka dowladda federaalka ee soomaaliya warbaahinada ina taageersanna la soo xidhiidha oo weliba waxaa loola soo xidhiidhaa waxaa laga yaabaa inaad raadinayso meel aad kala soo xidhiidho message baa lasoo qoraa haddaad qaybta facebooka joogta iyo qaybta youtube-kaad joogtaba labadaba midkaad muuqaalka ka daawato message baad soo qori kartaa lambarkaadaad kusoo qoraysaa annagaa toos kuu soo wacayna oo kula soo xidhiinayna message ahaan baad lambarkaada usoo dhigaysaa halkaa iyo halkaasaan joogaa asaasi hebel baan ahay ama waxba haysa sheegin oo hadhihin sargaal baan ahay ama hebel baan ahay hadhihine waxaad tidhaahdaa magacayda anigoo halkaa iyo halkaa jooga waxaad tidhaahdaa war halkaa iyo halkaa baan joogaa dan baana kaa lehe isoo waci dheh anaa kusoo wacaya warbaahinada kalena way kusoo wacayaan taasina ciidankaan leeyahay shacabka jubbaland waxaan leeyahay isku duubni muujiya ciidanka daraawiishta jubbaland iyo ciidanka dowladda garab istaaga isbedelka waxa weeye taageera ka soo baxa mugdiga iyo dhibaatada iyo afduubka 13 sano aad ugu jirtaan ninkaas odayga ee xishoo waaye bulshada ka xishoo waaye ka soo baxa oo cadeeya mowqifkiina cadeeya waa inaad mowqifkiina aad cadeysaan baa loo baahan yahay cabsiyaysa ina gelin qofku markuu dhibanaya war ilaahay baa inagu dhaariye intaan noolayn 13 sano hadda axmed madoobe uu joogay meeqaa la laayay meequu qarxiyey meeqaa dhafoorka laga toogtay meeqaa la xidho ilaa hadda waxay xidhayeen aan la garanaynin meeqa nabadoon baa la tarxiilay meeqa xildhibaan baa laga tarxiilay kismaayo meeqa wasiir baa laga tarxiilay meeqa waxa weeye shirqool lagu dilay oo inta axmed madoobe uu dilay qofka mar buu dhibanayaa kaa dhintay adigana berito hadduu axmed madoobe ku dilina adigoo caadi a dhimani ma joogays cabsida markaa ha la iska dhaafo isbedel baa loo baahan yahay jubbaland waa inay ka dhacdaa isbedel waa inay ka dhacda meeshan ma aha guri axmed madoobe uu leeyahay ma aha guri axmed madoobe u kiraysan oo isagu u kiraystay ma aha waa ummad masiir leh oo loo baahan yahay inay way hadhay maanta waxay ka hadhay maamul goboleedyada kale in la gaadhsiiya loo baahan yahay oo maamul goboleedyada sida kale siday u nool yihiin inay u noolaadaan iyo weliba si ka fiican loo baahan yahay wey maanta wuu inala degay dhinacii siyaasaddu inagala degay oo dhinacii waxa weeye amnigu inagala degay oo amni ma haysano oo wuxuu inagala degay dhulkeeni oo dhan khawaarijta baa ku maqan oo geedaheeni iyo dhulteeni baa la iska guranayaa oo maanta hayatay karta ama wasaarad intay dhahdo wargeedaha gurina dhihi kartaa ma jiro isagiina waa dhoofsanaya oo dhaqaalihii wuu inagala degay oo businesskii wuu inagala degay oo xoriyad qowlkii wuu inagala degay oo ciidankeeni waa maanta ceebtaas haysataa maanta horin isku dhibayo isagay ka cararaya waxaasaan sii hor joogaynaa warma waxaasaan sii daba taagnaanaa warma waxaasaan taageernaa maya waa damiir xumo marka waxayna leeyahay ha la kaco bulshadu ha kacdo ha ka hor imaato si wada jir aan uga hor imaano odaygaas geedka waxa weeye derbida ku noqday meesha ee bulshadii dhibaateeyey sidaan iskaga dulqaadi lahayn hadda waaba u dhamaatay hadda waxba kama hadhine sidaan iskaga dulqaadi lahayn ha lagu talagalo insha allahu tacaala